السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت هالكن وحنكسو تشيدين يا درسيني كواد أخذت نسخة جارهان الحروف التي تكتب فوق السطر حروف الله إنك تدل صارا وهي حروف طلبة قيبود إنه نقول دونتا أرضك وحلا دوني إنه إيش كوهيو تسوى قلب كواد قلب كلباتنا وإنه كسو العليو لبدا أهرمود بانا خدك لو برتا بلدان إجنو بسم الله حرف كاس وحرف كالف كوانا توسيه وأوشا توسن ويان وحرف كالف ديركيس waa 5 dhibcood line-kana kama digo laana maxaynu barananaa xurufta line-ka dul saaran xarafka ba'da labada dacal buu iska leeyahay halkan hal dhibic buu ka kaxsan yahay eeg labada dacal uu iska leeyahay halkan hal dhibic buu ka kaxsan yahay balciisuna waa 5 dhibcood in la eg ayaad ka dhigaysaa marka dhibcahani waa mitirkii qofku ilka cabir isha isagoo ka cabiraya uu ku dhigayo ishu ayuu ka cabiraya ilka cabir dhibcahani soo ku soo dhigi maayo niyad ahaan buu intuu balaca socday eegaya dhibicda bartanka lagu dhigaa labada dhinacna way iska leegtay ma kala gaabna halkaasna dhibic bay ka kaxsantahay kana waa inagii soo nidhi 5 dhibcood weeyaan dhererkiisu taada iyo taaduna waa walaaladooda waa la mid weeyaan intay soconayaan baada ay la mid tahay la mid yihiin halkaasay dhibic ka kaxsan yihiin balacaas waa 5 dhibcood waa taadii weeyaan labada dhibcood bartanka lagaga dhiga taada na waa la mid labada dhibcood qaabka loo qoraa iyo dhibicda qaabka loo qoro iyo saddex dhibicda qaabka loo qorana waa kan dhibic laba dhibcood oo sidaa isu dhinac yaala ama sidaa isu dhinac dul saaran saddex dhibcood oo sidaa laba isu dul saaran tahay midna saa isu dul saaran dhibcuhu waa qaabka noocaas oo kale ayaa loo dhiga marka taaduna waa taa labada dhibcood labada dhinac iska leegtay 5 dhibcood weyn balaceedu halkaana dhibicdii ayay mid waliba ka kaxsan tahay mar walba inta la soo daalka sidana soo qabanaysa labadan dacal kana soo horeeya marka wareeg waa kan line-kaad ku soo fadhiisinaysa kana line-kaad raacinaysa lama ogola qaabkii kale ee line-ka dhex ciyaaraya hawadaas dabada saa u dhuubnaa ee aan kana ku fadhiin kana ku fadhiin lama ogola waa wareegaas koow iyo ka labaad oo kana marka imika halkaa iyo halkaa marka la eego kanaa soo horeysa dhankanaa soo yareysa marka kanaad in yar soo durkinaysa ka hoose ayaad in yar soo durkinaysaa marka imika haddaan line halkaa lagu soo jeexo haddii halkaa line lasoo jeexo dhibicdaas oo kale ayuu line ka soo horeeya taadu vaalkuna waa la mid koow oo laba line-ka soo raacay vaalkii weeyaan taada line baad saa u raacaysaa markaasaad halkaasaa uga dejinaysaa marka halkaas oo kale 3 dhibcood baa socday oo dhinac dhinac ah dhinacaasana socday halkaasna hal dhibic in la eeg baan hoos u yar dejiyey oo aan ahayn sidan maaha sidan looma soo dejin ee horaan usii socda dhibic horada iyo way kala duwan inaad soo soo dejisid taas waa tallaabada koowaad weeyaan tallaabada labaadna waaba tanba sanaad soo laabtay marka eeg halkaa dhibic bay ka kacday halkaana dhibic bay ka kacday ushaa dheer halka aad ka bilowday oo taas ah ayaad kaga soo daraysa xiliyaduna waa ta ubaxa yar walaasheedan ku celino ay walaalaa yihiin balaag saa u qabo saa u soo deji
ta labaad ee kalaad kusoo darasana waa wareeg noocana oo fiqiisaasu taagan yihiin ushaa dheer ead halkaa kaga dhufanaysa bartaad ka bilowday ubaxaana waad ku darasa marka halkaa dhibic bay ka kacsan tahay halkaana dhibic bay ka kacsan tahay intaa yarina way ka soo horeysaa laynka dadka qaar baa inta sidaa halkaa gam ku siiya oo cagti yarayd ee soo baxsanayd ayaa la waayay marka taa waa iska haleeq khaladada waad iska ilaalinaysaa fa'da dalool bay leedahay halkaana cunaha yar bay ka leedahay inta kalena waa ba'di laakiin daloolka seerkalkeeda waa inaan dhakadaa dhuuban oo kala noqon koow waa inaan intaasu ka dambayn waa inaad laynka saa ugu soo laabin waxaaso dhan waa iska ilaalinaysa waa inaad bilaa dalool ka dhigin dadka qaar ba bilaa dalool ka dhiga dalool baana dhuusa dadka qaar ba dhuuntii la waayaayo dhuuntaa dhexe ka taga markaa khaladadaa ayaad iska ilaalinaysaa may iska da imka hadda waa dhameeya iska da fa'diina markaa waa taa maxaa soo hadhay kaafka iyo ha'da kaafka ushiisu waa alifka oo lagu daray ba haddaan ku yidhi ba ku dar dee ba'du 5 dhibcood bay ahaan jirtay marka halkeedna ha yarayni oo sidaa ha ka dhigin kaafka hamsadiisana saas oo kalea laga dhigaa eeg hamsada caadigaah waa taa oo taasaa soo horeysa hamse caadiga noocaas oo kalea lagama dhigo hamsadiisa sidana laga dhigaa ubaxayar waad ku darasa ubaxayar waa kaas waa toos kaas waa jiif ugu dambeynta ha'da gabadha la yidhaahdo eeg halkaa waad buurasaa taana dhiicada soo sameynaysaa taana saasoo soo laabasaa ha'da aan kugu celiyo mar labaad taa koow oo loo geeyey taa laba oo loo sii geeyey taa saddexda arrimoodoo la isku geeyey ayaa ha-ah ayaa ha-ah marka bal saddexdii arrimood isku geeyey taasu labadii buuggaaga labadii saleyn waa kaa halkaasaa u soo qabo taana waa tii labaad oo labadaasaan isku geeyey taa waan sheegay taana waan sheegay ka bacdi taana waan soo geeyey marka labadaa dalool way isku miisaaman yihiin sida bisada labadeeda indhood oo kale ayayna ama gabadha niqaabka sidato oo kale ay tahay ayaad isugu habeynaysa qaabka noocaas oo kale ah marka waa inaad aada iyo aada focuska u saartaan aan mar iyagoo sidoodii caadiga ahayd ka dhigo 11kaas ayaa laynka la dul saaran iyadoo sidoodii caadiga ahayd ayaa aynu hal mar saa u carabka gacanta u marinana horta waa dhibic 2 dhibcood haddana 2 dhibcood oo saa isu dul saaran 3 dhibcood oo saa isu dul saaran alifkoo toos ah ba'da ta'da 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 daalka daalka da'da asocdaada afkaara fooqa usheeda dheeree usheeda ha gaabinin da'dii kale fa'dii dhuuntaasoo haka tegin daloolkana haka tegin kaafka
ha'da oo taas 1 2 3 halkaas ayay darsigeennii inoo fadhiyayaa maanta. waxaa lagaa rabaa qoraal badan. ardayga waxaa laga rabaa buuggiisa uu wax ku qorayaa inuu noqdo buuggu aada uga fay karo. 11 xaraf 11 page baad kasoo sawiraysa. waayo more practice makes perfect. kullu maa qurir wax kastoo lagu celceliyaa wuu sugnaadaa. marka aada waxaad idinka codsanayaa markaan dhigayana ila soco ishaaratul ustaad macalinka siduu tilmaamayo. marka kalena gacantaada biyaha kaga dhereg. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.